samafale cabdimaalig muuse coldoon oon halkan idinkula wadaagnay arrimihiisa iyo xaaladihiisa u dambeeyey iyo xabsi ku jiritaankiisa iyo maxkamadda waxyaabihii ay ka tiri ayaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu aan yiraahdo cabdimaalig waxa uu xirnaa ugu yaraan 6 bilood ee u dambeysay aan yiraahno ayuu xabsiga ku jiray dabcan siyaabo kala duwanna dadka way u kala falcelinayeen oo qof walba iyo fikradiisa ayuu ka hadlayay walow maalmihii u dambeeyay ay jireen xaalado qabiil in wax lagu raadinayay oo markii dambe loo bedelay bahashu in ay dawlad ahayn oo u xiran yahay ninkaasi khalad ama qabiil qoys uu u xiran yahay isla markaasina taasina aysan ahayn wax xogaa nidaamka dawliga ah ku yar haboon dawladda Soomaaliland ka yar careysiyay waxaan idin la wadaagnay dabcan odayaal ka hadlayay arrimahaasi oo markii dambe iyaguna la xariyo xarig ku mutoostay hadalka isaga ahaa iyo waxyaabihii qabiilka ay ku raadinayeen waxa hadlay in dheergaradka iyo sidoo kale wasiirada dawladda qaybo ka mid ah iyaga oo sheegeen in cabdimaalig cadaalad uu helayo sharciga saxda ah iyo nidaam dawli ah lagu siidaan doono hadii la siidaanayo oo aysan ku salaysneen wax qoys iyo qabiil xiriir midna haddaba maanta waxa hadal laga sugayay oo aad loo dhagta loogu taagayay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex oo ku xirnaa cabdimaalig muuse in ay go'aan ka soo saarto xiritaankiisa iyo waliba wixii dambi ah lagu helay maxkamadda waxay ugu dambeyn cadeysay in cabdimaalig lagu waayay haba yaraatee dambi balse ay ahayd hadii qof walba oo muwaadina markii la soo qabto ay yani mudnaantiisa tahay in maxkamad la aadiyo si sharciga saxda ah wax looga ogaado wixii uu geystay in ay wax ka jiraan eedooyinka la xiriiray baaritaan dheer kadib maxkamaddu waxay sheegtay in cabdimaalig uu yahay bilaa dambi isla markaasina lagu waayay waxyaabihii lagu eedeynayay aadka u tirada badnaa cabdimaalig dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay mar waxa la yiraahdo argagixiso mar waxa la yiraahdo waa qoom kale u shaqeeya mar dawladda shisheeye u shaqeeya marba si unba yani lagu bahalkiyeenay balse dawladda ugu dambeyntii iyo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex oo halkii uu ku xirnaa cabdimaalig ayaa waxay soo saartay go'aan ah in cabdimaalig uusan lahayn dambiyadaasi dhan ee dadka ay ku soo eedeeyeen ama uu u xirnaaba haddaba cabdimaalig lama siideyn wali laguma dhawaaqin siideyntiisa balse maxkamaddu maanta waxay cadeysay in cabdimaalig hadda wixii ka dambeeyay siideyn uu yahay maadaama lagu waayay dambiyadii xooganaa lagu haystay bal maxkamaddii iyo hadalkeeda iyo waxyaabihii maxkamadda ka soo baxay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa muuqaal halkaasi laga soo duubay iyo garyaqaan ka hadlay maxkamadda oo markaasina ka hadlayay arrimaha la xiriira baaritaankii lagu sameeyay cabdimaalig muuse bal muuqaalkani iyo garyaqaankani hadalkiisa ayaan idin fasaxaynaa daawasho wanaagsan maanta ay tahay taariikhdu 3 bisha 2 2022 waxaan halkan idinku yeedhnay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxay soo saartay cabdimaalig muuse coldoon oo ahayd saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay dacwadaasi oo muddo soo socotay cabdimaalig waxa la xidhay bishii 8aad ee 2021 dacwadaasi ilaa maalintaas soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xorriyadiisa u celisay runtii go'aankaas waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aan soo dhaweynayno waa go'aan aan in badan ka dhul sugaynay qof kasta oo dacwadda cabdimaalig daneynayna saaka waxaan u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaana ku dhawaaqday dambiyadii loo haystay in lagu waayay cabdimaalig muuse coldoon waxa lagu soo eedeeyay 5 eedood 5 eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 110 heerka habka ciqaabta way ku guul daraysteen inay maxkamadda horteeda ka cadeeyaan inuu cabdimaalig galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamadda way horteeri kari waayeen runtii dhinacayaga waxyaabihi ay isu keeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiriibkii u dambeeyay oo cabdimaalig muuse coldoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaasi cabdimaalig wax dambiye muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa يعني تجيتان ومر مدحوينه تجي
waxyaabaha uu cabdimaalik sheegayey abaarso amba dadku ku tuhmayeen inaan wax maalin lagu ogaan karayo aanay hayn oon ahayn waxay tusoo taabsiye ahayd waxyaabo macnawiya waxaan clipkaasi cabdimaalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo in baadhis dheeriya iyo guddi baadhisada culuma ku jirto uun la diro taasina wax dembiya maaha de waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisi qaranka annaguna taasi waxaanu caddaynay inaanay dembi ahayn wax faldembiyadoo kalena cabdimaalik aanu gelina waxaan ku darayaa maragyadii xafiiska xeelaalintu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwaddii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamadda horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaanu caddaynay doorka hore wixii ay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirrada ardaydu ka mid ahaayeen waxay qoraallo ka kooban iskuulka ka qoray ka mid ahaayeen dhammaan intaasi bay ahaayeen dacwaddii hore ee cabdimaalik intii la sii daayay kadib inaanu qoraallo dambe noocaasa aanu ku qorin dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimanka yaa boggiisa ku qoraya taasi anu ma naqaano cabdimaalik hadda wuu xidhan yahay cidda ku qoraysaana maaha dacwaddan cid xidhiidh la leh markaa xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsannahay inaan dacwaddaas ku guulaysanay maxkamadduna ay saaka amartay in xorriyaddiisii dib loogu celiyo waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeelaalintu markiiba ay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen isla markaana xorriyaddiisa aanu weli wada helin cabdimaalik ee uu sii xidhan yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqda in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo ciddii kale dembi u haysataa racfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaasi waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeelaalintu caadaystay in qofkii markaa racfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaaraynaa waxaanu leenahay siduu sharcigu dhigayo ummadda somalilan sharcigay tahay inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay ee la yidhaha nabadda ha la ilaaliyo waxa u aasaasa cadaaladda haddii aanay cadaaladi jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaanu mar labaad ku baaqaynaa cabdimaalik in xorriyaddiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ee ay sheegtay inay ku weyday dembiyadii lagu soo eedeeyey isla markaana ay amartay in xorriyaddiisa loo celiyo aad iyo aad baa u mahadsantihin ma jirtaa imika damiin aad ku soo deyn kartaan codoon maadaama ay maxkamaddii gobolka mudug fasaxday rafcana laga qaatay sharcigu taasi marka horeba waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xidhi karin wax allaale wuxuu diidaya damaanad in lagu sii daayaana ma jirto laakiin in damaanad lagu sii daayo waxaa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagoo aan damaanad lahayn faraha laga qaado aad baad umahadsan النتيجة نوعية رفعانك حيرلان تقاطع كفلسة والله هو دعوة لبعض أو إلا سيد محكمة دي هوران سكيد دفاع عليه أنا ديارنا هنا سكيد دفاع عنه وحنا مكسي هورنا عيانا ما شفته لكن وحنا روتينا محكمة لبعضنا إن الجوان كساعة عدالة دون مرة دونتو ويا ودار كيسان محكمة ذو مركز الجوان عدالة حكمان يمركز الجوان عدالة الرأي حكمان قيمها أي كلا الذي ساك براب بالشدة واركيسين ومدة سومال لا نردمي ويسودا وينيسي magacaasna waxa le saaka oo magacaas u gaar yahay maxkamadda sii deysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii sii daayay waana arrin mar walba muujinaysa mar kasta go'aan noocaas soo baxo waa arrin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo ummadda Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo haddii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiiri geliya in ummaddu sharciga gacanteeda ku qaadato haddii se go'aan cadaalad la helo mar kasta waa jiritaanka qarannimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay caddayn u tahay halgankii dheeraa ummadda Soomaaliland u soo gashay inay xorriyaddeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato garyaqaankaasi waad maqlaysaan waxa uu ka dhawaajiyay in Cabdimaalik haba yaraatee lagu waayay dunuubtii waaweynaa ee dadka ninba si uu u fasirayay qof kastana markii dambi uu galo xaq waxa uu leeyahay in maxkamadda la geeyo sida u dhaqsiyaha badan wixii laga tirsanayo markaasi dawlad ahaanna si nidaamsan oo si dawli ahna looga gungaaro waxyaabihii lagu eedeeyay balse Cabdimaalik hadda waxaan arkaynaa maxkamaddu inay tiri waxba dambi ah waa lagu soo waayay hadda wixii ka dambeeyana waxa lagu guda jiraa sidii Cabdimaalik isagoo nabad qaba reerkiisii uu u tagi lahaa ee lagu sii daan lahaa waxyaabo badan ayaan halkan idinku soo gudbinay oo la xiriira Cabdimaalik waxaan rajaynayaa hadalka xiga inuu noqon doono mid farxad leh oo in badan idinka farax gelin doono maadaama nin muwaadin Soomaaliyeed oo markaasina ahaa samafale oo ku xirnaa halkaasina ku dulmanaa siideynta xigta iyo tan iyo warka xiga waxaan idinkaga taginaa mahadsanidin